maalintuu geeriyooday abubakar godka lagu riday inankiisa cabdiraxmaan ibn abi bakar oo dhaqaale sida ayaa yimid oo baytalmaalkiiba lacagtii ku soo celiyay cabdiraxmaan bin cawf ayaa ku yidhi waa maxay lacagtan aad wadaa halkeed ka keentay wuxuu aabba igula dardaarmo igu yidhi allah u naxariiso allah raalli ka noqdee wax hantiya haddaan dhinta maanta dhulkaasaan leeyahay dhulka gad oo iibi labadii sano iyo muddadii talada ummadda aan hayay baytalmaalka muslimiinta intaasaan masaariif ka qabaaye igaga celiyay buu yidhi qiyaamaha inaan waxba la igu yeelan aniga innaka muslimiinteenna zamankan waxaa laga yaabaa gaalay ku sheegaan horumar war horumar 200 oo sano oo hadda 200 oo sano oo isticmaalkan adduunka ingiriisku qaybiyay taariikhdii 200 ee sano dhalinyaradeenna lagu qufulo iskuulada loogu dhigaa 200 oo sano ka hor ummadii talinaysay caalamka hogaaminaysay taariikhdeedina maanta waa la inaga masaxay 2 sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda abubakar u hayay wixii masaariif baytalmaalka uu ka qabay uu soo celiyay laana umay qabin iyaku mas'uuliyadda inay dhaqaale ku qaataan mas'uuliyadda waxay u arkayeen xilligii ummadda nabiga loo adeegay ummadda loo khidmeynayay lidaalika mas'uuliyadda way ka baxsanayeen iyaku waxay uga baxsanayeen inay adeeg tahay bay fahmeen iyaku halka inakuna maanta mas'uuliyadda aan lacag ku doonayna lacag ma meel kaste maaha waddankan kaliya maaha caalamul islaami oo dhan baa maanta noocaas adeeg bay u arkeen ummadda u adeegayaan lidaalika mas'uuliyadda way ka baxsanayeen iyaku زمن dad badan oo muslimiin waxay u arkaan xilka xilligii aqal la dhisan lahaa ee ubadka wax loo qaban lahaa inay tahay lidaalika way ku ordaan bal way iibsanayaan ba kuraasadii si loo doorto lacag u bixinaya lacagta u bixinaya muxuu uga jeedaa hadhowto la lacag badan ha ka qabatid buu leeyahay meesha aqal ha u dhisid ciyaalkaaga cabdiraxmaan bin cawf allah raalli ka noqday lacagtii iyo wiilkii cabdiraxmaan in abi bakar intuu soo qaaday ayuu umar u keenay bal dhageyso umar oo ninkan wuxuu leeyahay markii arintii Umar loo sheegay Umar qabrigii Abu Bakar buu dul tagay wuxuu yiri Abu Bakar waadna daalisay buu keenay waadna daalisay aniga iska daay madaxda ka dambayso oo dhan siday u leeyihiin Abu Bakar ku dayda ayaadna daalisay buu keenay Abu Bakar مثل عمر بن الخطاب madaxdiisa wuxuu kula dardaarmayay saddex shay habadilina buu oran jiray saddex shay aqaladiina albaabadoodu iridu ha furnaato dharka aad nabi maxamed uu nigaga dhintayna habadilina sufrada cuntada aad ku cunaysaan ta muslimiinta daciifka uu cuno waa inay la mid noqoto buu oran jiray cunada afqar muslim fi baladikum uu cuno waa inay inkuna cunadaas oo kale aad la cuntaan buu oran jiray amma hantida baytalmaalka ku jirta waxa uu tusay Umar ummadda in hantida ummaddu ay leedahay ummadda loogu khidmeeyo wallahi Umar ibn Khattab maalin maalmaha kamida isagoo shuuradii asxaabu Muhammad sida u dhax fadhiya ayuu madaxa intuu qabsaday buu sida u naqas ba ka soo baxay markaas la yiri maad bugtaa may ma buko ma waxbaad maqashay oo naga qarinaysaa may waxba ma maqlino waxa naga qarinayo iga naxiyay ma jirto haddaan naqaska ka soo baxay madaxaad qabsatay kulli murug baa ku haysay noo sheeg annagu dhahan kula wadaagne markaas uu law asara dabbatun fil iraqi la su'iltu anha lima la tuslih laha at-tariqa ya Umar faras iyo dameer iyo baqal Iraq ku nool haday turoodaan waxaan ka baqayaa qiyaamaha in la igu qabto la weydiyo la igu yiraahdo ya Umar fardaha iyo dameeruhu jidadka ay marayaan maxaad ugu hagaajin weyday bani aadamkii xuquuqdoodii intay gaarsiiyeen ayay ka fikirayaan dameerka iyo faraska iyo baqashu meeshay mari lahayd inay wadada u hagaajiyaan Allah ina fahamsiin wadankan Faylan ayaan bari anako jamaaca tagnayo waanu fiirsaday baabuurkii yara waday u sameeyeen basaskii rukaabka waday u sameeyeen tareenkii waday u sameeyeen qofka baaskiilka waday u sameeyeen ka lugeynaya wada gaar ay u sameeyeen ka ayga wata meelaha rest area lagu nasto meel gaar ay u sameeyeen ilayeen halka adigu fadhiiso wax ciidan oo ilaalinaya ma jirto nin walba nidaamka wadanka loo dajiyay ee televisionka loogu sheegay ayuu ku dhaqmayaa oo ilaalinaya noloshii adduunyada saas ay ku hagaajisteen innakii muslimka ahna maanta xaalkeena wad arkaysan marka walaalayaal siirada waxaan u akhrinayaa ma waan gaari karnaa ma lihin waan ogahay zamanka joogno waa zaman adag weeyaan sidaan meesha ku soo galaaba iska adagba laakiin waxaan leenahay halkaan u socno waa halka weeyaan ummadeennan
inaanu adeegna loo baahan yahay noqono mas'uuliin وإلا هديك لمسؤول كستي قيامها isagoo labada adin ka xidhan ba marka qiyaama la keeni ama dadku talada u hayaba xariga ka furiyo oran doona ilaahu si fiican buu noogu adeegay jannada gali ama iyaka oran doona may ilaahu kan xaqayagi kama heline ilaahu noo qabay oran doonaan فأولا ليال إلهي عز وجل أمنيقان الله إنه زياديو يا إلهي نهان كوضع عبسنو عبسد إلهي بأساس الدين تينا يا هنسكون حريصنو هنسكون ضمقنو هنكل دعايسنو هنسكون دعاينو إمام أحمد بن حنبل الله ونحريسته بالله شيء وحول هدين ليسين لها دعاء كلي أول دعاء ومستجابه واحد جعشه كل دعاء هدين لي أورن لها مدحنا نقول دعاء لها يقول مدحنا لأنك مدحوا هدوه هجاجو مجتمعون يوم دورنا بينه هجاجي مدح مال كسر رسول الله صلاحنا ما جرت تراسهم عليه مركا خير با إنك مقدر بيدبو ما شاء الله هذان مدح ديني يمجيه إني مقالة ده أن زيارني رنت دليل ردين وان بوقني حتى قبله والله هذا اللي أضياشي علومدي أخيارتي وضن كان ما شاء الله مال كسر قبل والبعنو جوان تجي لكن ده إنك جلعسن أو إنك دبعسن أو إنك معان رنتي وضن كان كمان نركن النكو يا الله أنا إني بركايو سنوسو دويسن الله ينوسو وده دويو كو دين توده يدل كوجا يدد كوجا وحق بته وحطرن الله ينجا يلو دنبي والدين تنا الله داف دين تا الله ينو معانيو مرل كان الله شافيو موتات كان الله ونحريستو أمن إيمانك الله ينو زياديو مسلمين تمالي جوجان موافقين من ضمن الله سيو ضد بدن ولا لهنا قار دي بد جوجا قار دلك جوجا دعاء دلبنايه mid walba halku ka kurbeysay kurbada Allah ka qaado kuwa bukana caafimaad degdeg Allah siiyo isma haday kara Allah ina hadeeyo khaatimadan Allah inoo suubiyo sallallahu ala sayyidina Muhammad